Asalaamu calaykum walaalayaal waan idin salaamay dhammaantiin. Waxaan mar labaad kusoo laabtay inaan la wadaago magaaladan gobolkan Alberta oo dhammaan magaalooyinka oo dhan iyo iskuuladooda oo dhan laga qabanayo doorashadaas oo ay ku tartamayaan maayar iyo 12 ama 14 halka magaaladeedan Edmonton waa 12 degmo, Calgary waa 14, meesha la yiraahdo Brooks na waa 6, Fort McMurray na waa 6. haddaba waxaan jeclaan lahaa haddana waxaa kaloo jira school board halka iyagan waa 9, xagga waa 4, Calgary waa 14, Brooks waa 6, Fort McMurray waa waxaan maleynayaa waa 6 kale iyaguna. dhammaantood waxaa la qabanayaa advance voting waxaa la qabanayaa 7 to 11 oo October. maalinta ugu dambeysana oo electionku dhacaya ugu dambeeya waa 20-ka. waxaa kaloo jira dadku waxay codsan karaan in guriga loogu soo diro kaarkii codeynta, laakiin taas I don't know waqtiga uu jira maana weydiin, laakiin waxaan u maleynayaa in lasoo dhaafay. waxaan rabaa dadkeena Soomaaliyeed inay u dhagan nuglaadaan arrintaas, sababtoo ah waa arrin loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano. sababteenu ka qayb qaadanayna waxa weeyaan wadamadan aanu ku noolahay waa wadamo sharci uu ka jiro. sharciga ka jirana waxaa soo dejiya magaalada waxaa soo dejiya dadka degmada xukuma magaalada. sharciyada gobolkan waxaa soo dejiya gobolka marka cidda haysata. federaalkana waxay soo dejiyaan dadka baarlamaanka loo doorto. haddaba sharci ma jiro aana saameynin, ama ha noqoto wadooyinka la marayo, ama ha noqoto biyaha, nalka, traafikada, waxbarashada, caafimaadka, shaqada, immigrationka iyo dadka aynu sponsor garaynayno, lacagta, nabadgelyadeena oo dhowr qolobood, dacwada, dambiyada dadka lagu qaado oo aan mararka qaar ku dhici kara in la iska kaamaago, askarta oo laga yaabo inay kugu xadgudbaan, maxkamadaha, waxaasoo dhan saameyn bay ku leedahay arrintaas. marka mar haddaad wadankiina ku leentaa sharcigeena aad tahay sharci ku maamulaya, inaad sharciga ka warqabtid waa wax ugu muhiimsan. saa uga warqabisaana waxa weeyaan in dadka aad dooranaysid aad qayb ku leedahay. kolleyba haddii aan ilaahay noo calfo waxa laga yaabaa inaynu dadku yeelano, laakiin haddaynu inagu is abaabulno oo dee aynu u diyaar garowno. hal baa jirta anigu aanan dadka la qabin, dad yarba ay ogyihiin. anigu aad baan ugu kalsoonahay dadkayga Soomaaliyeed in ay arrintaas ka qayb qaadan doonaan. dad baan helin fursadaas haddana la siiyo ah inaanu doorano ciddii xukumi lahayd oo sharciyada noo dejin lahayd. wadankan deganaanshihiisa iyo ku noolaanshihiisuna qayb weyn bay ka tahay. waxaana jeclaan lahaa anigu waxaana jeclahay ilmaha markaad codeynaysid inaad ilmahaaga kacaysid si aad maskaxdooda ugu beertid oo ay iyaguna ay ugu beermaan adiga iyo xaaskaaga iyo ilmahaaga inaad israacdaan oo aad markaad codeynayso iyagu kula codeeyaan. taas waxay abuureysaa inay arrintaas u dhagan nuglaadaan marka ay gaaraan qaangaar, ilaahay hadduu u kaso. haddaba waxaan sameynaynaa hadda aan ku talagelayaa habeenada soo socda inaan magaalo kasta dadka ka cararaya intaa u cararaysa iyo waxay yihiin intay tiradooda la egyihiin inaan soo shama. maayaradoo kale waa sheegi karaa magacooda, laakiin city councilada tirada ka bateen because 14 maalin Fort McMurray hal riding ama hal deg meelood oo lagu codeynayo
ugu yaraan 14 qof baa iska sharaxday. marka 14 qof hadday meelka maxaad malaynaysaa meeshii 4 ama 6 ahayd ama 14 ahayd ama meeshii 12 ahayd. marka waa adag tahay, laakiin waxaan kasoo qaadan doonaa dad aan isleenahay waxay u dhega nugul yihiin arrimaheena. ama hato Edmonton anigu Calgary ma ogi, Fort McMurray yar baa lagala soo xiriiray, wax ku weydiin doonaa. Fort McMurrayna waxba kama aqaan, laakiin maayarkan sheegi doona because maayarku magaalada dhan baa lagaga codeeyaa, waana saameyntiisu leeyahay inkastoo isagu hal cod yahay oo city councilku ay u qaybsan yahay arrinta, laakiin isagu dee wuxuu xukumaa administrationkii buu xukumaa maaragtay executive-kii weeyaan. marka waxaan leenahay bal horta aynu maaragtay ka warqabno meeshaan ka codan lahayd iyo ciddaan u codan lahayn aan baarna way noqonaysa. wax yar oo aad waqti gelisa weeye google-ka inta gelisay riding-kaaga aad fiirisid, weli lama oga meesha badanaaba iskuullada magaalooyinkaan degan iskuullada laga codeeyaa, iskuulka ugu dhow bay kula noqonaysaa inaad ka codeysid. laakiin midka 7 ilaa 11 oo advanced voting la yiraahdo oo horumariska ah meelo gooniya laga codeynaya oo xaafad adigu dhowrkii qaybtiiba north oo kale Edmonton oo kale hal meelaa laga codeynaya, downtown oo Alberta weyn baa laga codeeyaa iyo meelaha waxyaalaha la midka. haddaba waxayna oran lahaa walaalayaal dhammaantiinba ilaahay ayna maaragtay caafimaad cimri dheer hayna siiyo, ilmahana ilaahay ayna xafido, aynu ilaahayna ka baqano, ummadiisana nabadgelino, innaguna aynu maaragtay ka fikirno sidii aynu u noqon lahayd dad ka mid noqda dadka halkan ku nool oo shartoodana iska moosa, wixii wanaag oo naga dhexeeyana aynu la qaybsanno haddii ilaahmo. waxa ugu weyn oo su-aasha ugu weyn oo igu soo laalaabatay waxa weeyaan sidee baynu dadkeena u wacyigelina, wacyigooda kor ugu qaadnaa. xoogaa waxaad moodaa markay noqoto wacyigelinta iyo ka warqabitaanta arrintaas inay aada u hooseyso, dadkuna iska qaayibeen dhibtaa haysata, oo qofku inuu isku dayo inuu isagu keligii maareeyo mana maareyn karo, sababtoo wax doon la wada saaran yahay weeyaan. qolo qabiil meeshan qabiil baa loo kala degan yahay, qabiilku maaha keeni, laakiin waxaa laga hadlaya dadka maaragtay midabyadooda iyo backgroundkooda iyo luqadooda iyo diintooda. dadkaasaynu ka mid nahay, qabiil ka mid ah baynu nahay, waa hal Soomaali la yiraahdo. waa inaynu baranaa sidaynu waddankan ugu noolaan lahayn, oo aynu dadkeena hadda weliba alxamdulilah dad badan baa noo yimid haddana soo galay, dadkaasi sidii loo dejin lahaa oo loogu abuuri lahaa fursado oo weliba maaragtay arrintaa wax looga qaban lahaa. arrintaa ku saabsan dadka hadda noo yimid iyo dad hore u yimidba mar baan si gaar uga faalloon lahaa dhibta arrimaha soo food saaray iyo meeshii ka yimid waxyaalaha u sabab ahaa iyo sida loogu hortegi karo iyo sida loo waanin karo ciddii dambe hadda gadaal ka iman doonto, inkastoo hadda ayba yaryihiin dadka imaanaya. haddaba intaynu markaan mar labaad ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.